tirada dadka Soomaaliyeed waa 10.5 milyan oo qof. Dalka waxa uu ku soo jiray dagaalo sokeeye laga bilaabo 1991 xilligaas oo ay burburtay dawladda dhexe. Saboolnimo daran iyo shaqo la'aanta waxa ay fursad la'aan dhigeen dhalinyaro badan oo mustaqbal leh. In ka badan 70% tirada dadka Soomaaliyeed waxay da'dooda ka yartahay 30 jir, iyadoo 42% oo kaliya dadka waqtiga iskuulka gaaray ay dugsiyada dhigtaan. Tani waxay sababtay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka caalamka ugu yar ee diiwaangelinta dugsiyada. Heerka shaqo la'aaneed ee dhalinyarada waa mid ka mid ah heerarka ugu sareeya caalamka oo gaarsiisan 67%. Sidaa daraadeed, iyadoo Soomaaliya ay ku biirayso dunida inteeda kale oo u dabaaldegaysa maalinta caalamiga ee dhalinyarada, maxay dhalinyarada ka filan karaan dawladda? dawladda Soomaaliya waxay dhalinyarada ka doonaysaa inay dhalinyaradaas dhalinyaro macnaha oo ka shaqeynayso siyaasadda iyo xagga nabadgelyada iyo xag walba oo ah inay macnaha xagga waxbarashada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada iyo siyaasadda inay ka wada qayb qaataan dhalinyarada ee garab ku siiso xagga macnaha nabadgelyada ee magaalada Muqdisho Soomaaliya. dawladda dhalinyarada waxay uga baahan tahay ama la rabaa in loo abuuro shaqo waxbarasho maxay tahay in ay dhismaan dhalinyarada inay yeeshaan xarumooyin inay yeeshaan waxtar fara badan dhalinyarada doorkooda muuqdo waxa laga baahan dawladda. dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dawladda inay ku hogaamiso hoggaan wanaagsan. waxaan jeclahay waxa kamid ah in adiga wax barto in xuquuqda la ilaaliyo waxaan jeclahay in bulshada noqdo si asaasiga dhalinyarada u baahan tahay waxbarashada oo kale in 100% ay ahaato waxyaabaha asaasiga u baahan dhalinyarada in maaragtay dhinac walba laga kaabo. waxaan ka qaadana maalin weyn inay tahay oo dhalinyarada maxay tahay ay tahay maalintii la aasaasay ama maxay tahay ku qaaliya ama ay tahay munaasabad ayaga u gaara oo muhiim ah.